maanta waxaa magaalada Kismaayo soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayay kusimaha safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Justin Davis iyo sidoo kale wafdi ballaaran oo hogaaminayay waxaana maanta gudaha magaalada Kismaayo ay kula kulmeen mas'uuliyiin oo hogaaminayay madaxweynaha dawladda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam safiirka iyo wafdigiisa ayaa kulan gaar ah waxay la yeesheen madaxweynaha dawladda Jubbaland iyo agaasimaha hay'adda sirdoonka ee dawladda Jubbaland waxaana ay ka wada hadlayeen xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee dalka tan amni iyo sidoo kale sidii xal waara loogu heli lahaa duruufaha cakiran ee siyaasadeed ee Soomaaliya ee haatan ka jirta taas oo isqabsi xoogan oo markaa kala dhaxeeyo dawladda federaalka ee muddaafka ah iyo sidoo kale mucaaradka oo Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ay qayb ka yihiin oo ay ku midaysan yihiin golaha mustaqbalka kulanka ayaa sidoo kale waxaa markaasi lagu falanqeeyay xoojinta wada shaqaynta dawladda Mareykanka iyo Jubbaland taageeridda amniga horumarinta hay'adaha dawliga ah iyo sidoo kale dadaalada lagu xoojinayo xasiloonida iyo wadajirka dalka wafdiga Mareykanka ka socday ayaa booqashadan ku muujiyay sida ay markaasi dawladda Mareykanku ay uga go'an tahay taageeridda nabadda dawlad dhiska iyo sidoo kale wada tashiga siyaasadeed ee Soomaaliya tan iyo markii khilaafka siyaasadeed uu hareeyay dawladda federaalka ee muddaafka oo ay samaystay muddo kororsiga oo ay golaha mustaqbalkuna si weyn uga soo horjeesteen waxaa markaasi dhacay dagaal gacan ka hadal sababay oo u dhaxeeyay dawladda federaalka ee muddaafka iyo sidoo kale mucaaradka waxaana taasi ay keentay in dagaalkaasi dhiig badan uu ku daato isla mar ahaantaana ay ku soo baxeen beesha caalamka oo hormuud markaa Mareykanka ay u yihiin sidaas si lamida waxaa markaasi la go'aamiyay in shir wada tashi ah la isugu yimaado iyadoo haatan ay socdaan ururinta aaraada iyo aragtiyada kala duwan ee golaha mustaqbalka si markaasi dawladda federaalka ee madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaaminayo iyo golaha mustaqbalku la isugu keeni lahaa isla mar ahaantaana meel la isula dhigi lahaa arrimaha doorashooyinka ee khilaafka xoogan uu ka taagan yahay si mar kale aanu dagaal dhiig badan ku daato aan uga dhicin dalka beesha caalamka oo Soomaaliya dhaqaale badan uga baxay ayaa haatan wada dadaal xoogan oo lagu doonayo in dhinacyada la isugu soo dhaweeyo sidaas si lamida xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta xalna ku qaabilay madax ka socotay golaha samata bixinta iyagoona markaasi aaraa kala duwan ka dhigayso oo ku aadan sida dhabta ah ee loo wajihi karo dejinta xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliya walina wax waran lagama hayo dhanka golaha samata bixinta ee magaalada Muqdisho kulankii maanta ay la yeesheen beesha caalamka xubnihii ka socday iyadoona la filayo xubnahan sidaas si lamida in ay la kulmaan madaxda Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud si meel la isula dhigo arrimaha doorashooyinka maadaama madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamuud uu muddo sanad ah ku darsaday taa oo si weyn uga soo horjeedaan golaha mustaqbalka Soomaaliya